xilliyadii aan iskuulka dhigan jiray laba mid inaan noqdo ayaa jeclaa. labadaas mid oo kale ah askariyad iyo inaan noqdo ciyaartooy oo ciyaarta qaranka Soomaaliya. taas mar walba niyadeyda ku jirtay. alaabaha Mareykanka ee lagu soo sameeyay Shiinaha xitaa haddii ay noqoto in loo weeciyo dalal kale oo loo arko kuwa saaxiib la ah Mareykanka. laqaaye aad u mahadsan tahay in badan ugu horreyn horta waxaan kamid ahaa dadka barnaamijkaaga bandhiga laqaaye daawan jiray qaybo badan oo kamid oo aad qabatayna soo daawaday balse ismaan lahayn wareegtada sida u socota adiga kuba imaanaysa ugu dambeyn way ugu timid oo ku faraxsanahay inaan barnaamijkaaga bandhiga laqaaye qayb ka noqdo inta kadib bulshada Soomaaliyeed ayna daawanaysana waxaan leeyahay Ramadaan wanaagsan. su'aasha aad i weydiisay haddii aan u soo gudbo ah waa Tumafoos. dabcan dad badan waxa laga yaabaa in ay muuqaalkayga ama in waxyaabaha aan qabto warbixino yar oo aniga iga mid ah noloshayda ay haystaan, laakiin taariikhda fog ee Foos xagee ku dhalatay, xagee ka timid, maxay qaban jirtay, xirfad maxay soo bilowday, maxay soo baratay, dad badan aysan garanaynin. waana ku faraxsanahay in badan oo taariikhdeeda kamid ah in barnaamijkan dadku ay ku baran doonaan. ugu horreyn magacaygu saddexan waa Foos Ibraahim Xuseen. ciidna awoow la yiraahdaa Xuseen ciid oo dabcan magaciyo hadda la ii soo gooyay oo Foos ciid kaliya laga dhigay halkaas oo magaca ka yimid. dabcan xilliga wada shaqeynayna aniga iyo adiga ayuuna magacaasi toos u hirgalo u baxay. intaa kadib waxaan ku dhashay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. halka ayaana in badan ku soo barbaaray. hase yeeshee qaxiyo waxbaa la kala galay balse qaxa ka hor waxbarasho dugsi hoose ilaa iyo dhexe isla magaalada Muqdisho ayaan ku qaatay. waa la qaxay adiga ugu dambeyn oo dhibaatooyin iyo dagaalo wadanka ka dhacay awadood. waxa loo qaxay halka iyo duleedka Muqdisho dabcan ceelasha biyaha oo dad badan ay garanayaan. halkaana waxbarashadeedii ayaan ka sii waday oo sanado badan ayaan ku noolayn oo aan deganayn ilaa dugsiga sare oo aan halka ka bilaabay waan sii waday balse iimayna suuragelin inaan waxbarashadii dugsiga sare halka ku dhameeyo. waxa dhacday in familkii ay ku dhalato arrin ah inaan guud ahaan wadankii ka soo wada baxno. hooyo iyo walaalo dabcan aaba hore u geeriyooday Allah u naxariisto sanadkii 2004 oo dabcan dhibaatooyinkii Soomaaliya ka dhacayna kuma geeriyoonin balse magaalada Nairobi ayuu ku geeriyooday Allah u naxariisto. waa nolol adag la soo maray oo waa la qaxay oo waa la rafaaday aaba ma nooleyn. dabcan nolosha waa dareemi kartaa marka ay qabyo tahay oo waalidkaagii xubin muhiim ah oo aaba ah oo familkii oo dhan gacanta ku hayay uu geeriyooday. rafaad wadankii ka dhacay dhibaato badan la soo maray adigu dhib badan oo kadib oo ilaa ceelasha biyaha muddo lagu noolaa ayaa Nairobi nimid oo waan soo baxnay. Nairobi marka waa meesha aan isleeyahay noloshaada taariikhda ugu badan iyo waqtiga ugu badan oo aan caqliga lahaa aan ku qaatay. Soomaaliya hadda aniga Muqdisho aan ku dhashay waxa la yaab ah mararka qaar in ayaan dhaweeto mar aan tagay 2018 dhamaadkiisii aan noqday qof aan weligiis wadankii arkin oo kale amaba aan ku dhalanin. sababtuna waxay ahayd Soomaaliya waan ku dhashay degmo dabcan degmooyinka qaarkood way isku dhex jiraan oo magaaladii ayay ku dhex jiraan laakiin degmada anaga aan deganayn oo aan ku dhashay magaalada gudaheeda aad bay uga durugsaneed. marka iimayna suuragelin in magaaladii aan soo dhex galo aan barto degmooyinkii kala barto waxyaabo badan oo magaalada taariikh badan oo ay leedahay ama waxyaabo badan oo lagu garan og yahay inaan barto. Soomaaliya markii aan tagay 2018 dhamaadkiisii waxaan noqday qof magaaladiiba ay ku cusub tahay. waa meeshaan ku dhashay. TV-ga waxaan ka daawado waxaan muuqaalo ka arko Facebook oo kale waxaan meelo ka arko ama aan maqlo oo aan haysto
kaliya ayaa jiray laakiin toos aan u arkin xilliyadii marka aan joogay laguma socon karin meel kasta dagaal iyo dhibaato iyo qaraxyada waxaan hadda jir ma jirin laakiin dagaal caadi ah socdayba iyo duqeymo iyo ciidamo shisheeye wadankii joogay waxyaabo badan oo haddana aanba waana yaraa maba socon karin kaligay qof magaalada soo barbaro soo socodsiiyana maba suuragali karin dabcan intaa kadib waan tagay adigu dad badan oo aan asxaab ahayn way yaabeen halkan maxaa la dhahaa degmadan magaceed laamigan halkaas muuqaalahan ka arkay dabcan marka al-mukarram oo kala dad badan way garanayaan ma fiir waxa meesha badan aan muuqaaladeeda arkay si fiican hala ii baro dabcan waxa mararka qaar la yaab ila noqotay dhismooyin badan oo marka al-mukarram oo kale ku yaalaan in aan u malayn jiray marka al-mukarram gooni oo garanayay dhismayaasha gooni wixiiba inay isku dhow yihiin oo isku meel magaci u yahay oo kala ma garanay dhismahan magacaas la dhahaa wadadan magaceed magacaas hadda waxaan meel kala duwan waa kaayeen waxa qaldan dabcan taas waxay muujinaysaa in dhibaato wadanka ka jirtay awgeed aan aysan ii suuragelin inaan si fiican u barto meeshii aan ku dhashay hadda qof markuu i weydiiyo xageed ku dhalatay Muqdisho waxa la ii qaadanayaa si toos ah inaan Muqdisho ka imid si fiican oo kala garanayo Soomaali si joo ayaa la ii wici jiray marka xag tagay anigoo sanad yar joogay hadda waxay ku buuxsantay 10 sano inta arkay joogo oo familkii dhamaan halkan aan ku wada noolahay muhiimadii markii aan u nimidna ma aysan suuragelin oo in buufis iyo waxyaabo aan baxnay ahayd laakiin ma suuragelin qadarta qorneed markaan taa ka soo gudbo Nairobi marka noloshayda dhabta ah ayaan dhihi karaa halkan ayay ku bilaabatay waxbarashada ayaa sii watay dugsigii sare ayaan dhameeyay intaa kadib waxaan bilaabay inaan college galo oo adigu xilligii aan yaryareen waxa jirta qofku markuu yar yahay waxna baranayo riyo iyo wax uu ku haymi weeyahay marka weynaato waxaan sameeyso markaad heerkaas gaarta halka ka dhac xirfadaas yeelo waxaan ka shaqeey qofkaas oo kale noqo hami ah laakiin xaqiiqatan aniga hamigii aan lahaayo dhan iyo waxyaabihii aan islaha sameeyso mustaqbalka marka weynaato ma dhicin waxaa jiri jirtoo kale xilliyadii aan iskuulka dhigan jiray laba mid inaan noqdo ayaa jeclaa labadaas mid oo kale ah askariyad iyo inaan noqdo ciyaartooy oo ciyaarta qaranka Soomaaliya taas mar walba niyadeyda ku jirtay waligay meel askar lagu tababarayo ma arkin waligay yani qof askari oo xataa aan saaxiib la noqdo ma arkin macaamil lama lahayn يعني فاميل كان قف عسكري كم جيرين لكن ما اسكت جعلا عيارها سدوا كله إن كستوا ولا لها إن بدن فوتبول كجعلاين وعيار جيرين لكن وحن حافظها كوكوبني أهاين وح ساوسي وينو أما ريالا أما قرامة لقى عيار جيرين رئيس جيرين نيروبي مركان إمد أو أنا بيدوك سجى سرق وحن إري محط بران كرتا أو حرفضة xiliyadaasna waxaan ahaa dadka TV-da aad u daawado waxaan daawan jiray oo aan aad u jeclaa barnaamij ka bixi jiray Universal in badan dabcan inta aan la ekaa iyo barnaamijyada aan daawan jiray wax shaqo isku leh ma ahaynba barnaamijyada dood oo kale aad u jeclaan jiray barnaamij dood markuu soo galo dadka sida loo doodsiinayo su'aalaha dadka ay weydiinayaan qofkan wuxuu ka hadlaa dabcan markasta qof aan taageeri jirayba qofkaana hadal fiican qofkaana pointida saxda ka hadla qofkaana foosay ka waran ana isweydiiyay hadii aad wariye noqoto horta adiga aad saan sameysaba anigi okay waxaan marka nasiibkayga daris la ahayn wiil wariye ah oo markaas ka shaqeyn jiray idaacadda Star FM wiilka wariyaha ahaa daris ahayn dabcan markaas waa weydiin jiray maxaa ka shaqeysaa maxaa qabataa see wariye lagu noqdaa see wax aniga wali college-ka ma bilaabin inaan college bilaabo ay ugu tali jirtay laakiin wariyanimadii aan niyadda ka jeclaay wixii waxa isla faham bal horta intaada barashadii dhaxgalin sawir guud ka qaado adigu si fiican buu ii fahansiiyay waan ka helay waan bartay xirfadii alxamdulillah aniga maanta soo guda galay marka sheekada aan ku soo kala dhaafay waxa igu soo dhici jirtay xiliyadii aan Soomaaliya joognay waxyaabo aan sameyn jiray marka isir warinimo baro waxa ugu soo dhacday waxyaabo aan sameyn jiray xilliga Soomaaliya joognay
barnaamij la dhihi jiray dhacdooyinka oo uu qaban jiray wariye la yiraahdo Xasan Cadde ayaa habeen walba hooyaday dhageysan jirtay. waxaa dhici jirtay marka anagana quraan akhrisan jirnay xiliyadaas oo kale dugsiga oo kale barina laga rabaa casharadii aan sii akhrisanayna aniga walaalo waxaan dhageysan jiray barnaamijka marka hooyo markay dhageysanayso kitaabkayga waa haystaa waan fadhiya laakiin waxaan jeclaa inaan barnaamijka dhageysto oo wax meesha ka socda aan wax ka ogaado. markii dambe hooyo meel saa u jiifto sariir ay madaxa saarto wayna soo jeedaa wayna jiiftaa adigoo indhaha isku haysataa idaacadina way dhageysanaysaa wax hurdo haysan oo egtahay ba inta raadiyay ka damiyay waxaa aqriyay intii wariyay uu sheegay waxaan sii daba dhigay markaa suuqa bakaaraha ayaa waxaa ka dhacay iska horimaad xoogan oo dhinacyadaas dhex maray oo saas iyo saasa wixii warbixino ku soo kordhana idaacadeena qaybaha dambe ku dhageysan doontaan way yaabtay way soo bood bismillaahir rahmaanir rahiim suuqa bakaaraha maxaa ka dhacay waa qosol markaa anaga suuqa bakaaraha marka hooyo way tagi jirtay badanaa way u shaqo tagi jirtay markasta indaa waxay ku fikirtay bariya u socotay meesha say wax noqdeen way soo jeestay maxaa dhacay waa qosol markaa qosolna raadiyo dulsana way aragtay maxaa dhacay wariyaad maxaa samaysay hooyo aniga markaa aqrinay marka way la yaabtay waxay tiri see u keentay ninka sidoo wax u aqriyaa adiguna u aqrisay wariyaha hadda dhageysanayna suuqa bakaara inuu dagaal ka dhacay hadda waa iga dhaadhacsiisayba marka waxaan isdiri wariye ma noqon kartaa waagaasna laakiin kuma fikirin inaan noqon doonaba niyadeyda marna kuma aysan jirin because hamiye kale ay igu jireen marka adiga sidiyaan u bilaabay college-kii igu suura gashay inaan dhammaysto anigoon shaqo bilaabeyn haddana waxaa ii suura gashay inaan aado dalka Uganda magaalada Kampala halkaasna aan waxbarasho kale kasii bilaabay jaamacad muddo aan dhigtay laakiin nasiib xumada ugu weyn ay ahayd aysan ii suura gelin inaan dhammaysto anigoo jaamacadda ku guda jiro weli oo waxbarashada ii socota arrimo family iyo waxyaabo kale iyo buufiskii wax uusan ka marnayn ayaa Nairobi ugu soo laabtay mana laabanin adigoo waan sii waday jacaylkii aan markaas hamigii saxaafadda aan ka lahaa anigoon weli shaqo bilaabin ayaan isbaranay nin la yiraahdo Cabdi Shukri oo markaas isagana aan weli wax jilin laakiin qaybihii jiliinka igare ay saaxiibo yihiin oo igare uu wax jilayo anigana uu igu yiri Foosay adiga qaybaha media aad ku jirtay wax ma jili kartaa in badan sheekooyinkaygu ka helay sida aan u sheekeeyay sida aan u hadlo la qaay totally waxa ay dadku markay hadlayaan gacmaha ka hadlo oo markii inaan qofka wax fahansiyo aan rabo gacmihi aan ugu tilmaamo aan gacmaha ka hadlo way fiiri Foos wax waa jili kartaa hadaada kaamirad ka baqay anigana waxaan barabay si aan kaamirad u soo hor istaago aan isu tijaabiyo markaan kaamirada ka soo hor noqdo sida noqon lahaa bas waxaa ere waan samayn karaa aan isku dayno haye wax yar baan isku aadisanay abwaan la yiraahdo Kaadheeri iyo aniga iyo igare riwaayad yar oo macmil ah oo Ramadaan way ahayd riwaayad yar oo macmil ah oo adigu oo wacyigelin ah gabdhaha inta badan lacagta aadka u jecel ka hadlaysa ayaan sameynay riwaayadii way soo baxday wax dadkii oo dhan ay daawadaan oo laga helay oo meel walba la soo galiyay oo qof walba uu ka hadlayo ayay noqotay dabcan Cabdi riwaayadda nagulama jira aniga igare iyo Kaadheeri ahayn way soo baxday riwaayadii gabdhaha qaar amaba dadka qaar waxay caqabada koowaad kala kulmaan dhinaca family-ka qoyska ana hooyaday way daawatay walaalay way daawadeen wayba just for fun way la qosleen way la yaabeen waxay ugu dhanseen waxaan u sameysay waa meeshan jiliinkeeda si fiican aan u sameysay meeshan saanay noqotay haddii ninkan saan ku dhila maxaa dhihi lahayd waxba aan la iga xumaanin anigana kalsooni badan aan sii helay intaanan marka shaqadii saxaafadda bilaabin sida aad arkayso wada kala qaaday oo jiliinkii ah qaybihii wacyigelinta adigu riwaayad kale ayaan sameynay riwaayadaas nolosheeda waxay ku leedahay taariikh weyn sababtuna waxay tahay aniga iyo Cabdi Shukri iyo laba gabdhood oo kale iyo igare ayaa riwaayada isla matalaynay waxay ka hadlaysay boofiska oo ahaa wixii waxbarashada isoo dhaafiyay aan ka soo tagay dabcan riwaayada markaan matalaynayna
qisada aniga markaas igumaysan dhicin balse markii riwaayada intaan jirnay ay 2 sano ka soo wareegtay ayay si toos ah riwaayada waagaas aan matalay qisadeedii igu dhacday wixii aan aniga dadka ka wacyigeliyay aniga igu soo laabtay waxay ka hadlaysay buufiska gabdho xilligaasna Nairobi arrinta si aad ay uga jirtay gabdho lacag familkoodii ka soo qaatay ee doonay inay dhoofaan ee 2 nin oo muqallisiin oo Mooriyaana ay gacanta ku dhigeen gabdhihii aniga way horta qofka ugu weyn oo riwaayada sida saxda ah qisada ay ugu socoto aniga lacag la iga qaatay waa la iska keedaba wareejiyay telefoonka la iga qaban waay ninka muqallaskay anaga noo dhaxeeyana muqallaska yarna waa Cabdi Shukri kee weynaa meel u fadhiyo waa iga ree adigu lacagtu naga qaadaa wuu u tagaa muqallaska weynaa ama mas'uulka weynaa meesha ingee laasaan uu soo yiri lacag kala keena tigidhka diyaarad adigu erayada uu isticmaalayo waxa ku cad muqallaska mararka qaar hadallada uu dadka u sheegayo in uu qofka fahmi karo in ay wax been yihiin laakiin waxa uu muuqdo darteed iyo wax laga dhaadhicinayo beenta qofka wixii uusan arkayninba يعني هدي ما عندنا ولا هذا وضن هبل على وجينايا وضداسي ولا مرينايا لعقتها سنة كحتة هذه جينا أجحي أوبا هنتهاي سعد لعقتها بحنيسها لكن محاد عي كرني كاسوها كيقول جين كلا بالمؤسسة تجو وحصلنا اسمه ويديني سيدا صح ذا ذن واحد علي إنه بين عد إيش عد شوفر أنا بينتي أركن لكن إن ده هيجي مسكح إذا أجيران مشوا يجين ربع adigu lacagtii la iga qaatay dib badan oo dhacay gabdho walaalahay oo ninka markii hore ay baray saaxiibadaya u tagay warsaana ay ugu dhacday war ninkii lama hayo telefoonki ma shaqeynay meel u raaca ma aqaan meel uu ka yimid ma aqaan meel uu degan yahay ma aqaan maxaan sameeyaa lacagna ma hayo bixidna ma hayo ninna ma hayo tala keena adiga gabdhii waxay dhahay ninka waa kula raadinaynaa waa la ila raadiyay anagoo maalin jid iska socona waaba kanba asagoo socdo midha koox kale been u soo sheegay waa la iga furfuri waay markaas riwaayadaas waxay ku sii macaaneed gabayaa ku jira iyo geeraare iyo adigu tixla tirinaayo halka anigu hayaan u geeraaro gabiyo hadda ma xasuusto waxa laga aqrinay oo gabiyo oo geeraaro waxaan ku yiri tuug qiyaanoola tahay ilaahayba wuxuu na tusay ninkii aan ku dhaganayn kii kalaaba la socdo soo diri jiro lacagtana loo geyn jiray macalkii kala qabsanay oo halkii aan isku bururayo riwaayada sidii ku dhamaatay adigu lacagna in loo celiyay ma aysan noqonin laakiin ninkii inaan qabanay at least ama loo xiri karo ama lacagna looga qaadi karo natiijo fiican adiga qofka lacagtana ay qaatay ugu dambeyn marka riwaayada wacyigelinta sidii aan u sii wadnay oo qofka lacagta laga qaaso beenta loo sheegay waxa ku dhici karaan tusaynay sidii aan u sii wadno adiga sanado kadib anigii buufiskii waxyaabihii inoo suuragali waayeen aan waxbarashada kaga soo tagay waxaan isleeyahay haddii aad shaqada saxaafadda si toos u sii gashana koleyba waa bixi rabtaaye qofka markii la qaayo arrin process uu ku jiro 98% niyadiisa waxa soo galaysa inay waxaan fududeyn u dhamaanay una bixi doono aniga garanti waxaan ka dhiganaa inaan bixi doono aan badaahe bas adigu wixii ma dhicin bixitaankiina ma suuragelin waan sii joogay riwaayadihiaan sii waday ma aan gelin dhinacii saxaafadda TV-na uma shaqeyn idaacadna uma shaqeyn waan la fadhiya xirfadaydii dhinaca kale u wiciyay